الرحمن الرحيم runtii alka waxaan ku beeninayaa war uu saxaafadda ay ku qoreen laba nin oo councilka Burco kamid ah oo aan runtii inta uga han weynaa labada nin ma garanayo waxay dhibsadeen hawshii wiigii dhaweyd malaan ku dhamaynay halkan ee beelahay ka soo jeedaan aanu ku dhexdhexaadinaynay oo dad badan baa waxa dhiba wanaaga iyo in ummadda la isu keeno sidaa darteed ma jirin shir aanu xildhibaano wada qaadanay oo official ah oo aanu isugu nimi siday ku sheegeen qoraalka ku qoran warbaahinta runtii aad baan uga xumahay aflagaadada beelaha iyo ummadda dadka degan midna aanay naga geyin ay yidhaahdeen gudoomiye Ramaax baa aflagaadeeyey markay leeyihiin xusbiga kulmiyana runtii xusbiga xusbi reeruhuna wadaba ummad fara badan nin waliba xusbigu doonu noqon kara wax la isku qaadi karo jamac la isugu qaadi karo reer hebel waa xusbiga kullu aanu dadka isticmaala mihi dadka ku dhawaaqana waa la yaabaa laba walaalaaba kala xusbi noqon kara reerdan oo qarana in lagu aflagaadoodana waa ceeb weeyaan dhaqankayguna maaha waxaan leeyahay labada nin ee ka tirsan golaha deegaanka ee Burco ee warbaahinta soo galiyay waxay ka shakiyeen ama ay cadeysan kari laayeen inay heshiiskii labada beelood ee walaalaha ahaa qaabkii aanu u dhamaynay ayuun bay diidan yihiin waxa la dadka la isuma bahal geliyo qof walibana wuxuu yahay baa raacaya